صاحب هذا بيجك كعصب تحي نديري وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. ما توحنا برنينا ما سمينا تجابة كسابسا أود بيهاينتا عرضة تجابة أنت أنا نقول كهر وحفيرنا بل الرياضة أيام فسرنا وحيابها الولجيدو أود بيهاينتا عرضة وحال الولجيدا حديقة ويانك عرضة عشان كرتو ليرتونا أي استعمال كرتو سهلا أود بيهاينتا عرضة وحيلا لا بلك لدوان أو كحرا هذا النوع عرضة نوع عرضة أما صيد تكسجر وسامج عرضة سجرته وأحبعات دوبي سيرت يلوم مركا صدقاس waxay kala yihiin sida soo socota dhinaca bidixda waxaa noogu qoran magaca carrada halkana waxaa noogu qoran dhexroorkeeda dhexroor waad garanaysaan waa carrada markaan ka soo qaadno xabad u kala qaadno budadeeda kala qaadno xabad u kala qaadno mid walba cabirkeeda bacaadka waaweyn wuxuu u dhaxeeyaa 2 ilaa 0.2 millimeter ayuu u dhaxeeyaa marka waxa ugu waaweyn bacaadka kadibna siltiga ayaa ku xigo oo ka yaryar bacaadka ayaa ugu yaryar oo ugu budaysan marka carradu inay dhoobay noqoto inay silti noqoto inay noqoto maxaa yiraahdaay bacaad waxay ku xiran tahay hadba inta xabadeedu la eg tahay marka xabadu weynaato waa bacaad markay dhexdhexaadta waa silti markay aad u yaryar tahayna waa dhoobay loom waxay ka kooban tahay saddexda nooc aan soo sheegnay oo la isugu daray nisba isla eg bacaad silti dhoobay la isugu daray nisba isla eg weeyaan ahamiyadda ay leedahay marka noocyada carrada waxay tahay sida tan weeyaan waxaa laga fiirinayaa 5 qaybood baa laga fiirinayaa awoodda nafaqahaynta awoodda biyo suurka awoodda biyahaynta awoodda hawo qaadashada iyo ka shaqaynta sahlanaanta ka shaqaynta ayaa laga fiirinayaa marka nooc walba oo carro ah waxbuu ku fiican yahay waxbuu ku xun yahay markaan soo qaadana carrada bacaadka ah waxay ku fiican tahay maxaa yiraahdaa hawo qaadashada waxay ku fiican tahay maxaa yiraahdaa ka shaqaynta waxay ku fiican tahay biyo suurka laakiin waxay ku liidataa nafaqahaynta iyo biyahaynta dhoobaydu waxay ku fiican tahay nafaqahaynta iyo biyahaynta waxay ku xun tahay saddexda siltiga iyo luumka dhammaan waa dhexdhexaad marka labadan dambe oo siltiga iyo luumka ayaa waxay yihiin carrada ugu fiican beerashada haddana waxaan fiirinaynaa qalabka tijaabada waxaan u baahanay 4 galaas oo salka ka dulduleela waxaa noogu xiga 4 warqadood oo miirta ah waxaa noogu xiga 4 saambal oo carro kala duwan ah waxaa noogu xiga miisaan waxaa noogu xiga manqas waxaa noogu xiga waraaqa adag waxaa noogu xiga cylinder marka qalabkan waa qalabkan u isticmaali doono tijaabada haddana waxaan u gudbaynaa sida loo xisaabinayo koow waxaan cabirnay 100 gram oo ah saambal carro ah 100 gram ayaan ka cabiranay nooc walba oo carrooyinka anaga waxaan ka cabiran doonaa 100 gram waa 4 saambal weeyaan carro koowaad waa carro madow ka kale waa carro madow ku xigeen saambalada markaan dhamayno ka bacdi waxaan cabiraynaa 100 ml oo biyo ah 100 ml oo biyo ayaan cabiranaynaa 100 ml oo biyaha ah ayaan mid walba ku shubi doonaa kadibna wuu ka gudbinaa si marka tijaabo dhacayso bal u fiirso aan soo qaadanay galaaskaas aan soo qaadanay hoos uu ka duleelaa kadibna waxaan saari doonaa warqadda miirtada ah ayaan saari doonaa oo ku dabooli doonaa duleelada kadibna waxaan ku shubi doonaa carrada carramadowda ayaan soo qaadaynaa ayada ayaan ku shubaynaa carrada marka waxaa ka celinaynaa duleelada ka baxdo warqadda miirtada warqadaas waxay ogolaan doontaa oo kaliya inay ka gudbaan biyaha nadiifta kartoonkan waxaan u isticmaalaynaa inaan ku taakayno bakeeriga si aysan labada weel isugu dhexdhicin marka biyihii ayaan ku shubaynaa si tartiib oo qiyaasa ayaan ugu shubaynaa markaan biyaha ku shubno biyihii ayagoo nadiif ah ayaad arkaysaa ayagoo hoos u sii gudbaya kabacdi waan fiirinaynaa biyuhu markay dhammaadaan oo ka dhammaadaan ayaan mar labaad cabiri doonaa saambal walba oo carro ah dariiqadaas ayaan marsiin doonaa ciidii 100 ml ahayd ayaa waxaan ku shubi doonaa 100 gram ahayd ayaa waxaan ku shubi doonaa 100 ml oo biyo biyihii baan ku shubnay asagana booskiisii baan ku celin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saambalka xigaan soo qabsanaynaa isla dariiqadii ayaan marsiin doonaa 100 ml oo biyo ayaan cabiri doonaa kadibna aan ku shubi doonaa 100 ml baan cabirnay waan ku shubaynaa wakaas kabacdina biyuhu waxay bilaabayaan inay ka gudbaan
meeshaas ayaan dhigi doonaa intay biyuhu ka dhammaanayaan. kadibna waxaan soo qaadanaynaa saambalka afraad oo ah bacaadka caramaanyada la yidhaahdo. galaaskii warqaddii meerteed baan ku ridnay, carradii ayaan ku shubnay, kadibna biyihii ayaan ku shubaynaa. bal fiiri, carrada caramaanyada ah biyuhu dhaqsahay oo gudbayaan. fiiri macnaha bacaadku markay ciiddu bacaad noqoto biyuhu dhaqsahay oo gudbaan, markasay dhoobay noqotana biyaha socodkoodu aad buu u yaraanaya. afartii sambal waa kana biyihii ayaa ka tiflaynaya, qaar waa dhammaadeen sida midka sambal koowaad, kuwa kalena biyihii weli waxbaa ku harsanoo way socdaan. waad arkaysaa sambalka labaad waxaad u jeedaa in maaragtay biyuhu aad u yaryihiin ka gudbay, kuwa kalena hadday socdaan. okay, biyihii waa dhammaadeen, hool sambaladii oo dhan biyihii way dhammaadeen, carradii keliya oo qoyan ayaa soo hartay. marka waxaan bilaabaynaa carrada qoyan mid walba inaan cabirno. waxaan kala jari doonaa carradu markay qalalnayd cabirkeedii iyo markay qoyan tahay cabirkeeda ayaan kala jaraynaa. kadibna farqa u dhexeeya wuxuu noqon doonaa biyihii carradu ay nuugtay. afartan waa 162 dhibic 7 ayay noqotay. waa diiwaan garaynayaa. kadibna waxaan cabirahayaa biyaha maxaa idhaahdaaye ka gudbay ayaan iyagana silindarka ku cabirayaa, inta ml yihiin ayaan qorahayaa. kadibna sambalka ku xiga ayaan isagana soo qaban doonaa, isla dariiqadii ayada ahayd ayaan marsiin doonaa. waxaan qoraynaa mid walba cabirkii uu noqday ayaan qoraynaa. biyihii ka gudbayna waan cabiraynaa, ayagana qiyaastoodaan ogaanaynaa, waan diiwaan gelinaynaa ayagana. kadibna waxaan soo qabanaynaa sambalka ku xiga, salka waa ka masaxayna, tiishka ayaan ku qalajinaynaa. kadibna miisaankaan saaraynaa, cabirkiisa warqadaas ayaan ku diiwaan gelinaynaa, lambarka sambalku ku qoran yahay. kadibna waxaan cabiraynaa biyihii inta ml ee ka gudubtay. kadibna waxaan cabiraynaa carradii, miisaankeedaan fiirinaynaa, waan diiwaan gashanaynaa. insha allahu tacaala cabiradan oo dhan waxay ka muuqan doonaan tayballada aan idiin soo bandhigi doona qaybta xisaabaadka ee soo socota noogu imaan doona. sida loo xisaabiyo marka awoodda biyahaynta carrada. awoodda biyahaynta carrada waxaa yacni biyaha carradu nuugtay intay leeyihiin waxaa lagu ogaanayaa MW waxay la mid tahay MT oo laga jiray MS. MW marka waa culayska biyaha oo garaama. MT waa maxay? waa wadarta culayska weelka iyo carrada qoyan. MS na waa maxay? waa wadarta culayska weelka iyo carrada qalalan. waa wadarta culayska weelka iyo carrada qalalan oo garaam. fiiro gaara halka garaamka oo biyo, hal garaam oo biyo ah iyo 1 mililitir way isla eg yihiin. VW waxay la mid tahay MW. V waa volume-ka biyaha, waxay la mid yihiin maaska biyaha. xisaabinta boqolleyda. xisaabinta boqolleyda marka la xisaabinayo oo percentage-ka aad soo saartay biyaha ee ciidan ay ahayn karto, waxaad u qaadanaysaa percentage-ka awoodda biyahaynta waxay la mid tahay culayska biyaha carrada ku haray oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyey culayska sambalka carrada ah ee qalalan. taybalkan marka aad fiiriso, sambalka koowaad marka aan soo qaadano, halka waxaa noogu qoran culayska carrada qoyan oo lagu daray weelka culayskiisa oo garaam ah. waxaa noogu xiga culayska carrada qalalan waa 100 garaam. waxaa noogu xiga biyaha ku haray carrada waa 62.7. percentage-kiina wuxuu noqonayaa 62.7. marka maxaan samaynaynaa? 67dan waxay noqonaysaa sarreeya ayay noqon doontaa. maaska carrada qalalan oo ah 100 garaamna hooseeya ayay noqon doontaa. kadibna 100 ayaan ku dhufanaya, waxaa ii soo bixi doona percentage-ka carrada ii soo bixi. natiijada tijaabada aan sameynay awoodda biyahaynta carrada ama noocyo kala duwan oo carra ah waxay noqotay sida soo socota. halka waxaa noogu qoran 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waa 4 sambal. sambal koowaad waa carra madow, ka ku xiga waa carra madow xigeen ah, carra madow xigeen ah. waxaa ku xigta carra guduud, waxaa ku xigta carra bacaad ah. kadib waxaa noogu xiga culayska carrada waa 100 garaam.
culayska biyaha lagu shubay waa 100 ml culayskii guud biyaha ka gudbay weelka waxa weeyaan waa kana halkan noogu qoran yahay culayska halkan waxa noogu xiga mugga biyaha ku haray carrada waa kana halkan noogu qoran yahay percentage-kiina halkan ayuu noogu qoran yahay marka insha Allah taala sidaan ayay natiijadii noqotay